Nolosha guurku waa safar qurux badan oo ay ka buuxaan jacayl, farxad iyo caqabado. Laakiin maxaa saldhig u ah guur kasta oo guulaysta? Waa isgaarsiinta furaha xidhiidh kasta oo waara. Waa wadnaha iyo nafta xidhiidhka laba qof. Isgaarsiintu ma aha keliya in la hadlo, waa in la dhegaysto, la fahmo, iyo in si furan loo wadaago dareenka iyo fikradaha. Marka labada qof ay si furan u wada hadlaan, waxay dhisaan kalsooni iyo ixtiraam, taasoo xoojisa aasaaska guurkooda. Waxay awood u siisaa lamaanayaasha inay xalliyaan khilaafaadka, inay taageeraan midba midka kale, iyo inay si wada jir ah u koraan. Laakiin maxaa dhaca marka isgaarsiintu ay yaraato ama ay gebi ahaanba joogsato? Nasiib darro, lamaanayaasha kala taga waxay inta badan marka hore yareeyaan isgaarsiintooda, taasoo calaamad u ah dhibaato soo socota. Waxay bilaabaan inay iska ilaaliyaan wadahadalka adag ama xitaa inay iska aamusaan arrimaha muhiimka. Aamusnaantaasi waxay abuurtaa darbi aan la arki karin oo u dhexeeya labada qof, taasoo kala fogaysa. Faham la'aanta iyo mala-awaalka ayaa buuxiya meeshii ay ahayd in ay buuxiyaan wadahadal furan iyo daacadnimo. Tani waxay keentaa in dareenka xanafta, niyad-jabka iyo kelinimada ay koraan gudaha xidhiidhka. Ugu dambayntii, isgaarsiin la'aanta ayaa ah sababta ugu weyn ee keenta furiinka. Marka lamaanayaashu ay joojiyaan wadahadalka, waxay joojiyaan inay isku xidhmaan, taasoo burburisa xidhiidhkooda. Waxay lumisaa awooddii ay ku xallin lahaayeen dhibaatooyinka, taasoo keenta in arrimuhu ay isku ururaan ilaa ay ka qarxaan. Furiinku ma aha keliya dhammaadka guurka, waa dhammaadka riyooyin, ballanqaadyo iyo qoys wada jir ah. Laakiin weli waxaa jira rajo. Weligeed ma daahdo in la bilaabo in si fiican loo wada xidhiidho.